بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داودياشا قيمها إيا قايها إننا مدن halkani waa YouTube channelka Aamina Macalin magacayguna waa Aamina Macalin ku soo dhawaada muuqaal cusub waa idin mahad celinayaa meel kasto ay joogtiin daawadayaashayga qiimaha iyo qaayaha inaga mudan fadlan like saar YouTube-ka subscribe dhe gambaleelka furo si mawduucyada soo socdo aad ula socoto hadii Ilaahay idmo la wadaag asxaabtaada si ay kula daawadaan waad ku mahadsan tahay soo booqashada aad soo booqatay channelkani mawduuca aan uga hadleyno ayaa waxay tahay sidii aan horeba idinku soo sheegay mawduucyada soo socda waxa idin balan qaaday inaan ka wada hadli doono xiriirka iyo dhalinyarada qaybtani waxaan uga hadleynaa waa maxay sababta ay dhalinyaradu u sameeyaan xiriiro badan ama dad kala duwan ay xiriiro ula sameeyaan sidaan ognahay markii aad maqasho xiriir waxaad arkaysaa ama aad maqlaysaa dad badan oo qaabab kala duwan u isticmaalo xiriirada hadii aan ahaan lahaayeen gabdhaheena quruxda badan iyo wiilasha intaba maxaa sababay in ay gabdhuhu ama wiilashu ay xiriiro kala duwan la sameeyaan dad badan xilliga hasaawaha mawduucaasi ayaan isla la faguri doonaa insha Allah daawasho wacan sida aan ognahabo waxa soo kordhayay muddooyinkii ugu dambeeyay dhalinyaro sameynayo xiriir markii aad maqasho waa wada hadal ama xiriir ka dhaxeeya laba qof sida wiil iyo gabar ama gabar iyo wiil sidii aan ku naqaanay xiriirada ama dhaqanka Soomaalida ayaa wuxuu ahaa mid aad cajiib u ah isla mar ahaantaana leh maamuus iyo tixgelin aad u balaaran oo la siinayo xiriirka waayadii hore waxa jiri jirtay hadii aan taariikhda wax yar dib ugu laabano markii oo wiil ama gabar qof kaleeto xiriir la sameynayo in ay sameyn jireen wax la mid ah hal xiriir ama hal qof in ay xiriir la sameeyaan xilliyadii hore aad ayaa loo tixgelin jiray qofka xiriirka uu kala dhaxeeyo tusaale ahaan xilliga balanta oo aad loo ilaalin jiray waqtiga balanta ama kulamada oo laga dhigan jiray muddo aad u fog in la is arko oo kaliya ah isla mar ahaantaana laga wada hadlo waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan xiriirka labadaasi qof ka dhaxeeya iyo sidii uu noqon lahaa mid miro dhal ah ama xiriirkaasi mid guuleysta sidaasi daraadeed ay gabadha ama wiilka waxay tixgelin jireen qofka xiriir la dhaxeeyo xiriirka uu kala dhaxeeyo iyagoo aan dad badan xiriiro la sameyn jirin sidaasi si la mid ah ay waxay ilaalin jireen niyada ama qalbiga qofka xiriirka kala dhaxeeyo laakiin waxa bedel bil cagsi waayadani qaab ka duwan in ay dhalinyaradu u isticmaalayaan xiriirada hadaba maxaa keenay in ay dhalinyaradu u isticmaalaan in ay dad badan xiriir la sameeyaan waxaad arkaysaa wiilkii oo la xiriiraya gabdho badan oo aad u fara badan isagoo xiriiro la sameynaya sidaasi si la mid ah ay gabadhu iyadana xiriiro la sameynaysaa wiilal badan waxaana meeshaasi ka baxaya adkaashaha ama dhismaha xiriirkaasi uu ku adkaan lahaa ama uu ku hagaajismi lahaa dhismihiisa maxaa yeelay markii ay wixii noqdaan wax badan oo aad u fara badan waxa yaraanaya kontaroolka la kontarooli lahaa xiriirkaasi Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa dharigii farabata waa uu fuud xaraareeya ama wax dhadhan iyo micno ma sameynayo markii xiriir la sameeyo gabdho badan ama wiilal badan waxa booski ka baxaya qodobadan soo socda in qofku uu kala dooran waayo dadkani uu xiriirka la sameynayo qofkii isaga ku habooneed in ay ka lunto qofka kalsoonidii uu ku kalsoonaan lahaa qofka kani uu isagu dooranayo in uu meesha ka baxayo ama ay ka baxayso hadafkii uu lahaa xiriirkaasi in qofka
uusan garanaynin xiriirka saxda ah qofka uu la sameyn lahaa qofka uu yahay. qodobka shanaad ayaa noqonaya ka fiirsashada xiriirka oo gabi ahaanba meesha ka baxaya. haddaba waxaa muhiim ah si uu u noqdo xiriirkani mid guuleysta in qofka aad la sameynaysid xiriirkaaga aad marka hore ku sameysaa waxa la dhaho xulasho. insha Allah mawduucyada soo socda waxaan uga hadli doonaa qaabka ugu wanaagsan ee aad u xulan kartid qofka aad xiriir la sameynaysid. sidaas daraadeed waxaan leeyahay daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha mudan ha laga taxadaro oo ha la adkeeyo xiriirada iyo dadka aad la sameynaysaan si xiriirkaasi uu u noqdo mid hagaaga oo miro dhal yeesha. hana la yareeyo xajmiga amaba cadadka dadka xiriirka aad la sameynaysid. taasi wax kasta oo yar waxa ay leeyihiin nuxurkooda amaba micnahooda waxaasi yar. sidaasi daraadeed markasto ha lagu saleeyo diinta islaamka waxa ay ogashahay dhaqankeena wanaagsan waxyaabaha laga soo gaaray iyo waliba dhalinyaradeena quruxda badan ee casrigan joogo waxyaabaha ay soo kordhiyeen. intaasi marka la isla kulansiiyo oo lagu daro taxadarka ah xulashada qofka xiriirka aad la sameynaysid wuxuu noqonayaa insha Allah xiriirkaasi mid guuleysta oo hagaaga oo miro dhal yeesha. wuxuuna noqon doonaa insha Allah xiriirkaasi mid mustaqbalkiisa loo meeldeeyay. Soomaalidu waxay tiraahdaa wax aan laga fiirsanin dhibaato ay hadhooti keenaan. sidaasi daraadeed su'aasha aan ku soo gabagabeynayo mawduucani wuxuu yahay waa maxay xiriirka ugu wanaagsan qaabka loo sameyn karo amaba haddii aan si kala u dhigno qaabka ugu wanaagsan uu xiriirkani ku guuleysan karo waa qaabkee sidii adiga ee kula tahay daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha inaga mudan. fikirkaaga waa inoo muhiim. fadlan qaybta commentiga igula soo wadaaga si aan u ogaado fikradiina. haddii aad wax su'aalo qabtaana ila soo wadaaga insha Allah waxaan isku day doonaa inaan idinkaga soo jawaabo. mawduuca ku xigo wuxuu noqon karaa waa maxay qaabka xulashada ee xiriirkani insha Allah la soco. inta mawduuc midkani lamida aan ka gaari doono waa Aamina Macalin oo kule fadlan nagu caawi laagta iyo subscribe-ka. waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo waqtigaaga quruxda badan aad inaga siisay. sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.